Suuriya iyo xulafadooda Ruushka. Xabad joojinta ayaa waxaa isku raacay madaxweynayaasha Ruushka iyo Turkiga. Idlib waa gobolkii ugu dambeeyay oo ay weli haystaan jihaadiyiinta iyo kooxaha mucaaradka ah ee Ruushku taageero, kuwaasi oo ilaa iyo 2011 isku dayay inay xukunka ka tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaasaysa in ilaa iyo 1 milyan ay ku barakaceen tan iyo bishii December-tii la soo dhaafay. subaxdii hore maalintii Khamiista ahayd 16 qof ayaa ku dhintay duqeyn Ruushku ka sameeyeen beer ku taalay Macarat Masriin. BBC-da ayaana goobtaasi tagtay. waxaan idinkaga digayaa muuqaalo naxdin leh ayaa warbixintan ku jira. Samiira Jaamac ayaa inoo haysa. waxay isticmaalayaan toosh si ay u baaraan dadka burburka ku jira. halkani waxay ahayd beer digaaga lagu dhaqo, laakiin markii dambe noqotay xero barakacayaasha Idlib ay yimaadeen. saacado ka hor inta aan wada hadallada xabad joojintu Moscow ka furmin ayaa musiibadan Ruushku ku lug lahaa ay dhacday. xalay halkan baan seexday. waa kan gurigayga, waa halkan. dabeetana Ruushankii ayaa yimid, dabeetana bom waa isla qarxa. This is from the bomb? Yes. Ha, dhammaantay waxaan nahay rayd baanu nahay. kulligay rayd baanu. dadkan waxaa la dilay iyagoo hurda, waxaana dilay ciidamada nidaamka Suuriya ee Ruushka uu taageero, iyagoo sheegay inay argagixiso bartilmaameedsanayeen. Well, when you take a look around here among markaad hareerahaaga eegto waxaad arkaysaa alaab kala firdhisan. waad u jeedaa in halkani hoy ahayd goob waalidiinta ay carruurtooda gabaad oga dhiganayeen. weli agabkii ciyaarta ciyaalka ayaa yaalla oo la burburiyey. maxaa qiil looga dhigi karaa in halkan oo kale la duqeeyo? laakiin Idlib arrimahan oo kale ayaa inta badan ka dhacayay dhowaan. waxaanu maqlaynaa weli jugta qaraxyada ee naga fog intaanu halkani nimi. been hearing bombings in the distance since we arrived. شو أنا بس خايف أولادي ما يخاف حالي. Axmed ayaa ii sheegaya inaanu waxba ka qabin inuu dhinto, laakiin carruurtiisa uu u baqayo, kuwaasi oo aan xalay halkan joogin. halkeebaad caawa adiga iyo carruurtaadu seexanaysaan? waxa uu yidhi ma garanayno, isagoo la yaaban inaan meel nabadi ka jirin dalkiisa burburay. xitaa cisbitaalka ammaan maaha, waaba bartilmaameed sida goobaha caafimaadka oo dhan. wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan doktor noqdo oo dadka daaweeyo. xabad joojintan ma soo afjari doontaa murugada halkan ka taagan, mise dagaalka dhinacyada badan halkiisa ayuu ka sii socon doonaa? ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa ku barakacay dagaalka Suuriya. dadkaasi ayaa culayska ku sii kordhiyay Turkiga oo horey ay u joogeen 4 milyan oo qaxooti Suuriyaan ah. Turkiga ayaa furay xadka uu la leeyahay Greece toddobaadkii la soo dhaafay. Turkigu waxa uu midowga Yurub ku eedeeyay inaanay wax gacan ah ka geysan qaxootiga taniyo markii ay kumanaan muhaajiriin ah ay isku dayeen inay u tallaabaan midowga Yurub. aadan maxamed cabdi saalimiin ayaa warbixintan inoo haya. qaxootiga Suuriya waa ay ka shakisan yihiin xabad joojinta. galbeedka Turkiga kumanaan ayaa ka baxsanaya dagaalka Idlib iyo dagaalada kale ee bariga dhexe, waxaana ay soo gaareen xuduudda Greega. waa ay tageen maxaa yeelay madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa ugu dambeyntii hanjabaad sameeyay si uu cadaadis u saaro midowga Yurub, isaga oo sameynaya mashaakil qaxooti oo cusub. Greegu waxa ay xireen xadkooda. waa jiil ku koray dhimasho iyo dagaal oo ay luntay fursadoodii waxbarasho. weli waxaa ku dhacaya dhibaatooyin kale. mustaqbalkaygii wuu baaba'ay. taasi waa sababta aan uga fikiraya mustaqbalka carruurtayda. waxaan doonayaa inaan guri u helo oo aan siiyo nolol wanaagsan, si aanay ugu baahan inay igu tiirsanaadaan ama ay cid kale taageero ka raadiyaan.
qoyskan 6 carruurta ah haysta Griiga ayay tageen halkaas oo ay sheegeen in boolisku ay ka xadeen dhammaanba lacagtoodii isla markaasna ay gubeen waraaqahoodii aqoonsiga ka hor intii aan dib loo soo celin waxa ay doonayaan inay badbaadiyaan sharafkooda dumar ayaa halkan jooga ma haysano musqulo maxay sameeyaan waxaan haysanaa gabdho da'doodu ay tahay 10 jir iyo 11 jir waa ay ka xishoonayaan ragga hortooda marka aad fiiriso dhammaan hogaamiyaasha dalalka faragelinta sameeyey ee ku lug leh dagaalka Suuriya ma jirtaa cid aad ku canaananayso qaladkooda qofka ugu muhiimsan ee mas'uulka naga ah waa madaxweynaha Suuriya Asad madaxweyne ahaan waa wax laga xumaado in aad carruurta dishid ama aad waxyeelaysid bani aadam si aad xukunka u sii haysato oo kaliya dadkani waxay dhexda uga soo dhaceen ciyaar aad uga weyn oo salkeedu uu yahay masiibo caalami ah oo lagu guuldaraystay in la joojiyo dagaalka Suuriya awoodaha dagaalkani ku lug leh waa quwadaha waaweyn ee u soo farageliyay dagaalka Suuriya dana iyaga u gaara iyaga oo aan wax tixgelin u haynin badqabka malaayiin qof nin Turkish ah oo deegaanka degan ayaa cunto siiyay Yurub tus arrinkan ayuu yiri waxaan rajaynayaa inay ceeb idinku tahay ayuu ku daray waa qabow dab ayuu ku shidayaa bacaha qashinka si uu u kululeeyo caanaha wiilkiisa yar intooda badanina waxa ay jiifaan bannaan furan 3 gabdhood oo walaalo ah ayaa ku hoos jira bustayaashan teendooyin ma haystaan baca roobka ka celiyana ma laha mana hayaan wax rajo ah bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa dalka Afghanistan ugu yaraan 27 qof ayaa la dilay iyadoo 10 kalena ay ku dhaawacmeen weerar ka dhacay magaalada Kabul niman dablay ah ayaa rasaas ku furay xaflad lagu xusayay geeridii hogaamiyaha bulshada Shiicada ah ee dalkaasi ururka Taliban ayaa diiday mas'uuliyadda weerarkan oo imanaya toddobaad kadib markii ay Taliban iyo Mareykanku saxiixeen heshiis xabad joojin ah dalka Cameroon ayaa laga helay kiiskii ugu horeeyay ee fayraska corona iyadoo laga helay qof Faransiis ah oo halka oo tagay caasimadda dalkaasi ee Yaoundé bishii February wasaaradda caafimaadka ayaa leh qofkan oo 58 jir ah ayaa lagu karantiimay isbitaalka Yaoundé taniyo marka uu xanuunkan dilaacay dabayaaqadii bishii December dalalka ka hooseeya saxaraha ee qaaradda Afrika waxaa laga helay 3 kiis oo kale dalka Senegal South Africa iyo Nigeria oo midkiiba laga helay min halkii maxkamadda sare ayaa ku heshay hogaamiyaha Dubai Sheikh Mohammed Al Maktoum inuu afduubtay 2 gabdhood oo uu dhalay iyo inuu olol cabsi gelin ah ku qaaday xaaskiisii hore go'aamo isku xigxigay ayay maxkamadda sidoo kale sheegtay in eedaha jirdilka ah la aamini karo waxayna diiday dadaalka shiikha uu ku doonayo in waxa ka soo baxo maxkamadda qarsoodi ay noqdaan waa kan wariyaha arrimaha amniga ee BBC-da Frank Gardner oo warbixintan soo diray waa eeda aan caadi ahayn oo waxyeelo leh iyo cabsi gelinta uu sameeyay hogaamiyaha Dubai Sheikh Mohammed Al Maktoum oo ay daabacday maxkamadda sare ee Britain faahfaahinta ayaa soo baxday intii uu socday dagaal dheer oo u dhaxeeyay shiikha iyo xaaskiisii hore Amiirad Haya bint Hussein Jordan amiiradda ayaa halkan lagu arkay iyadoo dhar cad xiran oo imaanaysa maxkamadda waxay sharaxday sida ay u soo carartay ee Britain u timid kadib markii ay ogaatay waxa shiikhu ku sameeyay labadiisii gabdhood kiiska maxkamadda waxa uu daboolka ka qaaday waxa la sheegay in ay ka dhex jireen mid ka mid ah qoysaska xukunka haya ee bariga dhexe ee ugu wax qarsiga badan eedaha waxaa ku jira in 2 amiirad qasab lagu celiyay oo mid ka mid ah la sheegay in halkan Britain laga qabtay Latifa waxa laga qabtay meel wax yar u jirta xeebta India 2 sano ka hor intii aysan isku dayin inay baxsato ka hor ayay duubtay muuqaalkan ku saabsan sidii ay markii hore ay ula dhaqmeen wakiilada aabaheed waa cadaynay maxkamadda u xukmisay in la aamini karo ciqaab joogto ah ayay ahayd xitaa marka aysan jir ahaani garaacayn weli way ciqaabayeen nalalka oo dhan ayay dami jireen xabsi keligay ah ayaan ku jiray keligay Royan Sports Eric ayaa xilligaasi ahaa 18 jir nasiib wanaagna ka badbaaday xasuuqaasi Mawlid Xaaji Cabdi ayaa inoo haya around 1 p.m. local time when abarakoodii duhurnimo koox askar ah ayaa timid gurigayga iyagoo qaylo iyo sawaxan isku daraya waxay ahayd cabsi weyn waxaan arkayay guud ahaan wejigiisa oo isbedelay markii uu xaqiiqsaday qofka aan ahay xaqiiqdii sawirrada ayaa noloshayda badbaadiyey
magaciigu waa Eric Murangwa Eugene waxaan ahay ciyaartooy heer caalami uga ciyaaray Rwanda waxaan ka badbaaday xasuuqii 1994 kaas oo ka dhan ahaa Tutsiga gumaadkaasi boqolka maalmood wuxuu galaaftay nolosha 800 oo kun oo qof toddobaadyo kadib markii uu bilowday dadka caadiga ah ayaa lagu dhiirageliyey in ay ka mid noqdaan ha yeeshee bil ka hor gumaadka kubadda cagtu waxay isku keenaysay dadka naadiga Rwanda ee Rayon Sports ayaa wajahay kan Al Hilal ee Suudaan ciyaar ka tirsan koobka African Cup Winners' Cup waan xasuusan karaa sida uu xilligaasi u wanaagsanaa garoonka uu buuxay inta uu qaado Eric wuxuu ahaa goolhaye kooxdiisa waxay ku badisay 4-1 markii aynu badinay ciyaartii dadku waxay ilaaween kala duwanaansho kasta oo ka dhaxeeyay waqtigaas waxayna u dabaaldegeen guusheenna sidii hal ummad oo kale maalin ayaa askari u tagtay guriga Eric oo ku yaal caasimadda Kigali si ay u dilaan askarta ayaa guriga dhinac walba u socotay iyagoo u kala tuurayay alaabta kor iyo hoos waxay ahayd cabsi weyn waxyaabihii ay kor iyo hoos u tuurayeen ayaa ahaa sawir ka soo dhacay album wuxuu soo jiitay dareenka mid ka mid ah askarta wejigiisa ayaa gabi ahaanba isbedelay durba markii uu xaqiiqsaday qofka aan ahay 10 daqiiqo ee xigay dhab ahaantii waxaynu ka sheekaysanaynay kubadda cagta runtii sawiradaas ayaa noloshayda badbaadiyey 25 sano kadib Eric wuxuu isku keenaa dadka isagoo u maraya kubadda iyo ururkiisa samafalka ee Ishami Foundation waxaa jira dad badan oo dhalinyaro ah oo la murugoonaya kalena kulmay silic cawaaqibkii xasuuqa kabaadari ahaan waxay ahayd caqabad weyn inaan la imaado fariin diimeed laakiin waan ogaa haddii aan ka bilaabo ciyaaraha in ay ii noqonayso sahal in dhalinyaradu i dhegaystaan then that would be easier for the youth to listen to me. Hay'adda Eric waxay la shaqaysaa bulshooyinka Rwanda oo dhan. sida aad aragto wiilasha iyo gabdhaha wada jir ayay isugu dhafan yihiin iyagoo wada ciyaaraya waxna wada baranaya ciyaarahan aanu ciyaarno waxay inoo ogolaanayaan inaynu ku baashaallo waxayna nagu dhiirigelinayaan ka fogaanshaha colaadda iyo faquuqa waxay iga caawisaa inaan si wanaagsan u fahmo wixii dhacay waxayna i siisaa ku dhiiranaan aan kaga hortago naftayda iyo dadka kaleba waa tallaabo adag oo dheer in la bedelo fakarka dadka halkaasi waxaan ku gaari karnaa waqti fog laakiin waxaan ku faraxsanahay waxa aynu iminka gaarnay La Petrera waa mid ka mid ah dhismayaasha ugu caansan ee uu naqshadeeyay injineerka reer Spain Antoni Gaudi waxa uu dhismahani ku yaalaa magaalada Barcelona waa qasri wareegsan oo dhagaxyo dhalaalaya ka samaysan waana dhismo ku dhawaad 1 milyan oo dalxiisayaal ah ay soo booqdaan sanad kasta qarni ka hor waxaa loo dhisay inuu dhismahani noqdo guryo deegaan ah waxaana cajiib ah in weli ay degan yihiin halkaasi Junayd Farax ayaa inoo haya marka aad bannaanka ka eegtay qasrigan ku yaala Barcelona ee dalkan Spain waxaad ku arkaysaa waxyaabaha lagu yaqaan goobaha dalxiiska sida safaf dhaadheer iyo dad sawir ka qaadanaya darbiga aan isla ekaan dhismahan uu naqshadeeyay Antoni Gaudi laakiin dalxiisayaasha badankood kama warqabaan in ay galayaan dhismo weli hooy u ah 3 qof oo dumar ah maanu ogeyn in weli halkan dad ku nool yihiin anigu waan jeclaan lahaa inaan halkan ku noolaado xilliga habeenkii laakiin maya maalinta cad siiba marka ay dad badan soo booqanayaan mid ka mid ah 3dan haween ee weli ku nool dhismahan ayaa ah qoraaga Ana Filadimoy oo dhismahan degneyd in ka badan 30 sano waxay ku qaadatay muddo dheer inay aqbasho dalxiisayaasha bilowgii way iga cadhaysiin jirtay inay gurigayga iigu yimaadaan dalxiisayaal weliba markay noqoto inaan cidhiidhi iyo xusul riix aan ku galo guriga aniga iyo carruurtayda hadda waxay caawiya shaqaalaha soo dhoweynta iyo ammaanka qasriga qaybta ay ka degan tahay ana dhismahan ayaa loo naqshadeeyay qaab qalqalloocan oo aan lahayn hal derbi oo toosan
waxaa meel walba ku xihan kaamirooyinka qarsoon iyo qalabka qiiqa dareema inkastoo ay ana dareemayso nabadgelyo laakiin waxay dareemaysaa inay nolosheeda oo dhan la kontaroolo haddii aan cunto kariyo oo qiiq badan u baxo waxaa durbo telefoon ii soo diraa shaqaalaha ammaanka dhismaha oo i weydiiya dab miyaa kacay noloshayda oo dhan ayay maamulaan oo ay la socdaan haddii laysoo buuqdo iyo sida ay xaaladaydu tahay wax ii qarsoon male qasrigan waxaa loogu talagalay inuu noqdo dhismo kire ahaan loo dego 100 sano ka hor halkaas oo xilligaas ay ku noolaayeen dad gaaray ilaa iyo 120 qof laakiin hadda waxaa ku harsan 3 qof oo keliya mustaqbalka qasrigan ayaa la isweydiinayaa waa su'aasha ugu weyn maxaa dhici doona marka saddexdeenuba halkan aan cidlayno marka ay dadku ka tagaan guryuhu waxay isu bedelaan xafiisyo qasrigan waxaa gacanta ku haya hay'ad maxalli ah oo dhaqanka ilaaliso waxayna doonayaan inuu qasrigan ahaan doono hooy la dego muddo fog inkastoo ay qireen in loo isticmaali karo xafiisyo iyo wixii la xiriira hidaha iyo dhaqanka si kastaba ha ahaatee ana iyo 2 qof oo kale ee degan qasrigan qorshaha uguma jirto in ay dhawaan guuraan haddana waa wararka ciyaaraha ee caawa habeeniyad jabah ayay u ahayd Wayne Rooney iyadoo kooxdiisa cusub ee Derby ay horyaalka FA ka saartay kooxdiisii hore ee Manchester United waxaa laga guuleystay 3-0 iyadoo xidiga cusub ee Manchester United Odion Ogala uu dhaliyay 2 ka mid ah 3daasi gool Manchester United ayaa semi-finalka kula ciyaari doonta kooxda Norwich City madaxa Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaan ku faraxsaneen in kooxda xifaaltanka kala dhaxeeya ee Manchester City la siiyay maalin dheeri ah si ay u nastaan ka hor ciyaarta ay ku qaabili doonaan kooxda Derby maalinta Axadda ah Manchester United ayaa xalay ciyaareysay horyaalka FA-ga iyadoo Manchester City ay haysatay 24 saacadood oo dheeri ah si ay isku diyaariso dhanka kale Liverpool ayaa isku dayaysa inay dib ugu noqoto guuleysigeedii iyadoo la ciyaari doonta kooxda Bournemouth Chelsea ayaa iyana gurigeeda ku qaabili doonta kooxda Everton barnaamijkana teknolojiyadda ee Clickna waxaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda toddobaadkan Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa inoo haya shirkadda diyaaradaha ee Hong Kong ay leedahay ee Cathay Pacific ayaa mas'uuliyiinta waddankan UK waxa ay ku ganaaxeen lacag gaaraysa $650 milyan oo dollarka Mareykanka markii ay ku guuldareystay shirkaddu in ay dhowrto xogta macaamiisheeda waxaa loo dhacay oo la jabsaday xogta rakaabka shirkadda oo ay ku jireen dhalashooyinka dadka iyo weliba lambarrada teleefanadooda waxaana ay saamaysay dad ka badan 9 milyan oo qof oo ku nool dunida shirkadda samaysa baabuurka Telsa ayaa iyana waxa ay sheegtay in ay processor duq ah oo culus ay gelisay modelada cusub ee shirkaddu ay soo saartay sababtuna waxa ay sheegtay in ay tahay alaabtii loogu talagalay oo ku yaraatay fayraska koronaha dartii shirkaddu waxay sheegtay in qalabkaasi ay horumarin doonto oo ay wax ka bedeli doonto marka ay soo gaarto alaabadu bal markana daawo robotyadan waxay dunida ku soo kordhinayaan waxqabad hor leh oo la yaab leh waxaa la baray in ay socdaan robotyadan muddo saacado gudahooda cilmibaarayaasha robotyada shirkadda Google ayaa u isticmaalay farsamada garaadka macmalka ah oo ka dhigaysa robotyadan in ay horay iyo gadaalba ay u socon karaan iyo weliba in ay dhinac u leexan karaan